يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب سابنا صيامنا ما بنلعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد درسي صدنات دروس رمضان تاي هلك جلينا درسي عنوانكيس وحويان رمضان محاكا ضمبية. رمضان بشي رمضان إلهي سبحانه وتعالى وينوس وجبجبي آخر الشهر ما أنت ودم بيسي وما لك صدنات أين شوقناه بشاس waxaa ka faa'iideystay cidii Allah subhanahu wa ta'ala uu qadaray nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu sheegay saddex man saama ramadaan iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qofkii ramadaan soomay isagoo iimaan loo ajar dalbanaya dambigiisa waa loo dhaaf qofkii ramadaan istaagay man qaama ramadaan iimaanan wa ihtisaab waa loo dambi dhaaf من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك ليلة القدر استاغي سو إيمان له أجر دلبانيا ذنبك والله ضعف. إذن رمضان وبشي دم ضعفك وانت أصبا وحكس بدي صدح أصبا وأسباب شهر رمضان ضحكس بدي هبينك ليلة القدر قفك الله سبحانه وتعالى وافجي دم ضعفك واهلي أما هذا أقاد أما يؤجانن soonka iyo qiyaamka ramadaana markii ramadaan ay dhamaato cidii soontayna loo dambi dhaaf cidii istaagtayna loo dambi dhaaf bishu markay dhamaato ramadaan ay gabagabowdo khayrkeedii iyo wanaageedii bay la gabagabowday cidii ilaahay waafajiyay cidii aan waafaqin ramadaan aan waafaqina bu'dan wa suhqan fogaansho ayaa u sugnaaday sida nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu yiri man adrakahu ramadaanu فلم يغفر له فأبعده الله وفي رمضان سو غاره ان لو دم دافين الله فوغي مركز جبريل باساله عليه السلام نبينا عليه الصلاه والسلام وحول حال يقول قل امين فقلت امين وحال لو دعيي ان حريسته وكفغادو وحو ضيعي بشي رمضان قفك رمضان ضيعي وحي كلنا وكسي ضيعات بدنيه قفك رمضان عباديسن وايي قفك رمضان كفايديسن وايي رمضان وحي aan ahayna kama sii faa'iideysan karo oo dayic wakasi badanaya wakasi xoog badanaya ikhwani fillah shaki malaha رمضان qofkii ka faa'iideystay kii aan ka faa'iideysanba qofkii soomana inuu xun khalalihi ay jirayaan marka awalan رمضان dhamaadkeeda waxaan nasaaix iyo talo u qaadanaynaa in bal lagu khatimo oo lagu gabagabeeyo toobad iyo istighfar واستغفارtu maxay tahay waxa laga ilaahay dambi dhaaf ka weydiisanaysaa cibaadadii aad soo samaysay wixii khalal ahaaye kugu jiray iyo wixii gabood fal ah iyo wixii gaabis ah baad ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf ka weydiisanaysaa in badanna quraanka waxa arkaysaa iyadoo cibaadad la dhameeyay iyadoo dambi dhaaf la weydiinayo nabigeena kaleey salaatu wasalaam markuu salaada ka baxo إلهي بود بداف ويدسن جري استغفر الله مركي حج كلا دميي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله مركا استغفارته يد بداف طلب كإن لبضيو وعرين آدي مهمة استغفارته وعرين كين يساقف كإن وحيسي الله سبحانه وتعالى وهجاتيو ودمبيجي سأله وضعفه وأعماشي سي أوانك سناته عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أمير المؤمنين الخليفة الخامس وحو قري وهو قري ضدك مقالوينك يقبل لذا هيي يسوق أمريا يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار بشهر رمضان لقو ختم ولقو قبي استغفار هي صدقة الفطر فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وكاسو يسوى فتشي استغفارتي إيو سكات الفطر رسول استغفارتي يدمرافك ألا لو يديستا حالي صدقة الفطر لغوغا يا رفثك أي كا طاهرينيسا استغفارتنا وحي لغوغا يا رفثك سي حمايين أي ميشا كساريسا وكا هاجينيسا marka labada ku gabagabeeyo استغفارتو إلهي سبحانه وتعالى إن بداف لو يدست أنبيادي بدقنكودي أي أهيد marka taa ayaan soo daarmaynaa inaynu ku gabagabeeyno bisha Ramadaan khaasatan
استغفارته marka ay raacdo ee waafaqdo wax wanaagsan oo toobad ah oo qofku uu ka dhabeeyo oo xumaantii iyo dambigii iyo macaasida ka baxo markaas ay si haboon tahay way talooyinka bisha Ramadaan maadaama ay dhamaato gabagaba tahay acmaal fara badan baa la qabtay acmaashaasi waa maxay soom bay leedahay salaad bay leedahay salaatul leeyl iyo qiyaam bay leedahay zakaatul fitr bay leedahay istaag iyo qiyaam sadaqay leedahay quraanka la khatmiyo la dhameeyay baa jiray ducooyin baa jiray dhikri baa jiray ilaahay subhanahu wa ta'ala la xusayo sadaqa la baxay dad sooman oo la afurinayo noocyadii birriga ee la sameeyay wanaagyadii kala duwan umrooyinkii waxaas oo cibaado ah oo Ramadaan dhex dhacay waa in walwalkeeda la qaado muxuu yahay walwalkaasi cibaadadaas ma la aqbalay mise lama aqbalin waan walwalka qaado ma hayna isxajabiso oo faraxdo oo tiraahdo waxana soo sameeyay Ramadaan ma ka soo faa'iideystay oo soo cibaadaystay inaad tiraahdo maaha waa inaad ka walwashaa cibaadadaadani cibaado sax ah oo la aqbalay ma ahayd ilaahay agtiisa maqbuul ma ka tahay oo qabuul ma heshay mise ma helin Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu leeyahay inma yataqabbalu Allahu min almuttaqiin waxa uu ilaahay wax ka aqbala kuwa wax ka baqa ee cabsada inma yataqabbal kuwa umba ilaahay wax ka aqbala marka taqi ma tahay heerka ma gaadhay cibaadada ma la aqbalay waa inaad tawalwalkeeda qaato saadaradeed salaf saalix waxay ahaayeen kaanu yajtahiduuna fi ikmaal al-amal wa itmaami amalka inay dhameystiraan oo taam yeelaan bay ku dadaali jireen oo itqaaniyaan oo sugaan oo si ay u qabtaan thumma yahtamuuna ba'da dhalika biqubulih kadibna waxay ahmiyad siin jireen oo hammi gelin jiray ma laga aqbalaya waxay khaafuuna radda in lagu celiyana way ka biqi jireen Allah subhanahu wa ta'ala quraanka leeyahay walladina yu'tuna ma aatu wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raaji'un wa kuwa wixii la amray sameeynaya ee bixinaya wa qulubuhum wajila qulubtooduna iyadoo baqaysa khaif ah maxay ka baqaysaa annahum ila rabbihim raaji'un marka nabigeena kaleey salaatu wasalaam waxa uu ku fasiray waa kuwa soomiyo salaadayo cibaadada la imanaya kadibna waxay ka baqayaan in laga aqbali waayo marka hays kibrinin hays la bixin hamoodina wax qabatay ogow oo fahan cibaadada aad samaysay qabuulkeeda ilaahay bay ku xirantahay subhanahu wa ta'ala in laga aqbalay in kale ma ogid hamigeeda qaad oo ilaahay weydiiso rabbana taqabbal minna innaka antas samiicul alim wa nabiyullah ismaaciil iyo nabiyullah ibraahim ilaahu naga aqbal beelin qabuul bay ilaahay weydiisanaya subhanahu wa ta'ala بعض السلف الصالح كانوا أشد لقبول العمل أشد منه اهتماما بالعمل ذاته عمل كلفتي سي أقبل كيسا كوينا سي اهتمام صينيا وطنينيا ورادينيا قاركود مثل فضالة بن عبيد وحليه لئن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة حدان أقاد حبض إن الله يقبلي وخرد الأه أحب إلي من الدنيا وما فيها الدون كي يوحى كل شربة انت أصلا كجعله هذا سيقلب أقاده إن لا يقبلي حبة خرد له الدون كونه ما كجعله صوت محيطي لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين إلهي سبحانه وتعالى ساسو لي متقين بالله وحكا أقبله مركا متقين تليس كودان كبيرة هذا أقاده وحلا يقبلي متقين تبان كبيرة عبد العزيز بن أبي الرواد وحليه وحان سوى قاري أصحابتي بشيغيا وحي كد داليان عمل الصالح فإذا فعلوا وقع عليهم الهم مركي سميان هم با كل عشري أيقبلوا منهم أم لا ما لا أقبليا بس لا أقبل معي مركا عملكاغي إلهي قول ويديسو يا رمضانتي waxaad soo qabatay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala bari oo hamigaagu ha noqdo ma laga aqbalay bis laga ma aqbalin waxaan kaloo soo daarmaynaa oo bishii Ramadaan gabagabadeeda ah in amalkii Ramadaan la sii joogteeyo oo acmaashii Ramadaan la qabanayay taacada cibaadada waa in aanay bartii kaaga lumin oo kaaga harin ee aad ku dadaasho oo hore u soo qabato qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqaya حق تقاته عبسده الله سبحانه وتعالى دبته أوليه عبادتي بو حريرينيا عبادتيسو وقتكما قونا عبادتي وشوكتو مركا الله سبحانه وتعالى مؤمنين تو تلماميو وصفينيو عبادتي شوكتابو كسفينيا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وكو صلاته ذو خشوعة حل قار ماها حل والبا والذين هم عن اللغو معرضون وكو اللغو كتشيستا رمضان تكليه ميا حل والبا والذين هم للزكاة فاعلون رمضان تميا ما يحل والبا
ساسا الله سبحانه وتعالى uga warramaya والذين هم لفروجهم حافظون فروجda xifdiyayaan xilli walba waa daa'im waa joogto وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أضمهاس حل أي سعنيان دجناشاك سعنيان وحل والبا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هبينك بهوينيان يقول سجود سن وتاجن بإله بهوينيان سبحانه وتعالى وحل جه رمضان تخليه ما يقوى شوكتو مركا ربي سبحانه وتعالى رمضان لعابدي رمضان غير كيدنا وشوجه سادر هذا وحال رمضان عبادتي إن la xiriiriyo oo la joogteeyo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu dhawaado waxa kale ogaataan sababtu waxa weeye amalka inaga waxa la inaga rabaa ilaa xilliga la inoo qabtay waa ilaa iyo aakhir zaman ilaa yaqiintu inoo timaado dhimashada ah qofku ilaa uu geeriyoodo amalka waa inuu wado joogteeyo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqiin rabbiga aabud inta ay yaqiintu ku imanayso يقينتنا وجيردي موتكي وي آيات كلا الله سبحانه وتعالى وحليه فاعبده واصطبر لعبادته إله سبحانه وتعالى عابد رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده عابد واصطبر لعبادته عبادتي سنة كو صبر كو أتكيسو marka ku joogtay waa inaad joogtayso ku sabirto cibaadadu ay musaabara ala taaca ay ku noqoto oo joogto ku noqoto cibaadada joogtada aba ilaahay jeceliya xadiiska Aisha صحيح كسوغان نبينا عليه الصلاة والسلام حول أحب الأعمال إلى الله أدومه عمل إلهي وحوج عليه كلا دائمه عمل كتشوكت ده هذا يراده وإن قل وحير بها النقطة عمل كوين تشوكت كان نقطة مركا سيد رادد إن عمل كسيس عضو لفت يده وحاجة تصالح على نسيه حتصالح إنه قفلا وحالة شرعية بش رمضان مركا لماته إن الراعيه صون صنعه ولح مالمود وشواله بش شوال لح مالمود كمده نبينا عليه الصلاة والسلام حليه من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة حديث كلنا حد من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر قفك رمضان صومه كدي من الراعية لح مالمود وكمده بش شوال وحنقول يا سنة كورن متصومي حق حسابته مركل الحسابيو الحسنة ب10 أمثالها halka wanaag 10 baa lagu dhuftaa marka Ramadaan 10 baa lagu dhufanayaa amaladii aad sameysay marka Ramadaan amalka aad sameysay iyo khayrka aad sameysay marka 10 lagu dhufto 10 bilood bay noqonaysaa adoo cibaadaystay bay Ramadaantii la mid tahay maxaa soo haray lixdii shawaalka 10 ku dhufo waa 30 maalmood waa labadii bilood ee baaqiga ahaa sanadka oo dhan adoo cibaadaysanayay ay la mid tahay marka waa ogeysiis kooban in cibaadada aan bartaa lagaga harin إلا سيجوك تيو سادرادد با نبينا عليه الصلاة والسلام وحو إنو شاقي لحمة الموضع الشوالة إن لغو دارو هل كاسا كسي واسا مكا عماشي عباداتكو إني تشوكتوكو نغضان أيال الدونية وآذا نغن من رمضان كغيمي سيدو كلا وحي عبادات آت سميسي حكوكة تسومين يقول فرا بضان وحبضان إلى القبطي يقول نغن هبين بدن بان تاقنا قرآن بضان بان ختمي وحبضان بان قبطي صدق بضان يقول بضان قفك مركا او دداله صلاه قران بدن ختمي عمره سميستي تراويح بدن توكدي قيام الليل صدقوين مساجد كوقت بدن ku qaatay اعتكاف قران اخرس وحاصل لكن ها ogaado hadii naftu ay tahay naf xun haday tahay oo ciyaadada badan uma fiicnaba kuma infaacayso sababtu maxay tahay shaydaanka soo fuulaya kaartu noqonaya shaydaanka wuxuu oranayaa wax badan baad samaysay oo taacooyin badan baad samaysay oo kaas Ramadaan ahsanaad far badan oo buura laaleeg baa kaaga soo baxay markaas uu cirka isla maraya kuleeyahay xaashiyaha waa la buuxiyay malaa'ikti khayr badan bay ku qortay quruur baa marka ku dhacaya naftiisi uu la cajabaya arintaas xaraan iska ilaaliso oo waxba kula noqon Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu kuleeyahay wala tamnun tastakthir الله ku galadaysan adoo wax badan u arkay inaad samaysay adoo ilaahay galadu sheeganaya oo ilaahay waa ku soo cibaadaystay wax badan ma ku soo qabtay Allah subhanahu wa ta'ala hawmana sheegan acmaashaadu si kasta u badan tahay meel ku gaarsiinayso waxba maaha xadiis waxa ku sugnaa anna rajulan yajurru ala wajhihi yakhirru ala wajhihi min yawmi wulida ila yawmi yamutu haraman fi mardati Allah ta'ala
لحقره يوم القيامة هدي الضون أما قنين ووجهك dhulka dhigo u sujuudo alle maalintii uu dhashay ilaa inta uu dhimanayo isagoo gaboobay harim ah inta uu sujuud ku jiro cibaadad joogta ah la xaqarahu yawm alqiyaama maalinta qiyaamaha way la yaraanaysaa wax xaqiraya marka amalku si kasto u badan yahay xama wax xaqirmaya oo yaraanaya daciif buu noqonaya waxba ahayn marka ilaahay subhanahu wa ta'ala nimcadiisa la barbar dhigo sida daraadeed marka maxaad samaysay cibaadadka ilaahay wuxuu ku galay isha alle ku siiyay ma gudi kartaa dhigta iyo maqalka ma gudi kartaa nimcadaas ajarkeeda maya iyo abaalkeeda ma gudi kartid sida daraadeed ba amalka aynu sameeynaa in kasta uu la eg yahay janno laguma galo nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu lan yadkhul aljannata ahad bi'amali qofna amalkiisa janno kuma galo rasuulka Allah adigana wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu ilaahi naxariisiisa dhexgeliye mooyaane aniguna amalkayga janno kuma geliyo buu nabiga sallallahu alayhi wasallam idan aka amalkaagu ma gooyo janno si kasto u badan yahay ma gooyo marka ay kula badnaanin ha ku kadsoomin ku dhicin quruur iyo ku dhicin marka maxaad u baahan tahay marka talooyinka waa in aad amaaladii aad sameeynayay ee rabadaan sameysay waa inaadan goyn hay isnacina oo haysteynina amaaladii aad sameeynaysay waa inaad wuxuun kala soo hadho salaatu leel baad tukanaysay hadaad salaatu leel tukanaysay 12 ragcadood 12 hadaan soo reebi karin bal wax kamida soo reeb 7 soo reeb 5 soo reeb 3 soo reeb waxaad joogtayso ka soo reeb laakiin ha kala tagina soon baad soomin jirtay soonkii soonka sunnaha wax ka qaado soon ha kala dhaqaajinna waa ka tagin hadayicin ducadii waa inaad rabadaan tadbiyeeda wada waa joogtaysa sadaqad la baxaysay waa inaad sadaqadii rabadaan kadib la baxdaa waa in amalka aad sameeynayay uu sii socda amalku marka uu joogto noqdo ee aad joogtayso hatta hadaad xanuunsato waa lagu qoraya xadiis waxa ku soo arooray inuu nabigu yiri idaa marida al-abdu qala Allahu lil-kiramil katibin uktubu li'abdi mithli alladhi kana ya'mal hatta aqbidahu aw aafihi qofka haduu xanuunsado adoonku alle wuxuu ku yiraahdaa malaa'ikta wax qoraysa adoonkayga u qora intii uu sameyn jiray ilaa aan oofsanayo ama caafimaad siinayo intii u qora marka amalku uu joogtoobaya ku qurmiya hadaad amalka joogto ka dhigato hatta hadaad safarto hadii xaaladu ku adkaato hadaad xanuunsato uu ku qurmiya ku soconaya jaarib ku noqonaya cibaadada marka inaad sii wado joogtayso weey oo aad daa'im ka dhigto aqhabul a'maali lillahi adwamu sidoo kale amalku marka aad joogtayso de husnul khaatimada inuu ku hagaagto sababka kuugu noqonaya oo nabigeena kaleey salaam kiiri ida arada Allah bi'abdin khayran istamala adoon haduu alla khayr la doono uu shaqaalaysiista بس كيف يستعملوه سوى شقال سنة يا رسول الله قال يوفقه لعمل قبل الموت ثم يقبضه عليه عمل جيريده كهريا وقال له وافجينيا كدبنا كاسو كدليا سو وتو دائميو u joogteenayo saadaraaded saalixiinta cibaadadoodu jamiic awqaat xiliyada oo dhan way xiliga barwaaqada xiliga dhibaatada lagu jiro xiliga rabadaan la joogo xiliga rabadaan qeyrkeed la joogo xiliga barwaaqada xiliga mixnada cibaadadoodu waa joogto dadka muuminiinta saalixiinta saas ayaa lagu yaqaan bal xiligan oo kale ku si fiican tahay oo xiliga dadku qaflada ay ku jiraan ee qaarkood ay amalgadii ay soo sameeyeen joojiyeen in adigu aad ku soo biirto liiskooda aadan ku biirin ee amalkaaga sii joogtayso waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dhaweynayo iska ilaali ha kamid noqonin dadka rabadaanta la soo galay iyagoo dambiyeenniyada ku haya macaasidii iyo dunuubtii iyo fisqigii iyagoo niyada ku haystay rabadaan la soo galeen markaasay joojiyeen hakiyeen rabadaan markay dhamaatayna bartiba ka sii bilaabeen qulubka ha ku biirin iska ilaali sifaas waa sifahum way wa idha jaa'ukum qalu amanna وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون إلهي منافقين مركوا ورميي قال لماذا بيكولي يمادين آمنا بإليهن مركا يكوسوا قالين قال لماذا دويوتين مركا يدحين ووتين ابن كثير وحليه وصفة المنافقين صفة المنافقين توي محمد ويكو إيمانيان يقو كفر وطا كدين ويكابا حيان كفر جيسو لما يستران أو كما انتفاعين با وحبا ما يترين بوعدي وحشاقي قرآنك دينتي marka ha noqonin qofka Ramadaan aan waxba tarin ee isagoo macsidii dunuubtiisi xambaarsan oo qulub niyada ku watay fisqigiisi Ramadaan galay kadibna Ramadaan dabadeeda u dib dhigtay hadhowna macaasidii bartii ka sii bilaabay Ramadaan aan waxba tarin halka ha noqonin
هكون نقنن وحي حمانه أتسمين جرت أتكسر بحضي أو كي خمر عبين وخمر يكون نقضه كي مخدرات كل شيء مخدرات يكون نقضه أصحاب الزنا ذي يكون نقضان كل الربا عني الربا يكون نقضان كي فسق كل شيء كي قتل يدلك سمين يدلك وحي أو سمايه يعني وحى تكون نقطة وحبيب حما وأنا تسكئل على سو وضمبين وأنا نيد كوها إنه قوله تعالى فوزك يلي بانت لما يسكتران رمضان إن قاعدوا كبح ضمها وإن إلهي تشندي سكون جلست النار كبدباده وإن هذا فكر قطع حلو والبناء شقيسة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قفك اللي جبت بادية نار شنو اللي جليو كاسة ليباني مركا حلقة ويليبانتو سات شنو أجل اللهيد وجول يسن النار وجبت بادي لهيد تا انكشقه إلهي سبحانه وتعالى ويديسو كالما يسوع ربي سبحانه وتعالى طريقة كسعه إلهي سبحانه وتعالى وقرب جليه هنا نقول بالعابد رمضان عابدي ربي رمضان اسكلها بلهردن ربي اسكلوي سبحانه وتعالى دمداف كسين حريسي سين وكل الديار إلهي سبحانه وتعالى ويدسنا إنه وافجيو كوكفى إذا استنى الله سبحانه وتعالى نقدقه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب زادنا صيامنا ما بنلعب.